السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام عليكم بشوكتين مجاعيد وديكو أنت إجرناز أديك 2010 كي أيام مر يوتيوب السعودي أنا مر كليه وهانا عندنا قناة الصومالية هذا النتي إجرا عاد إلهي ما أقصد marka xoogaa adiga waan ka yar gaabsaday youtube-ka maadaama aniga aadan commentigeeda aada iyo aada u dhib u xumaayeen oo markaa la ii dooday oo lii hangadiyo la yiraahdeen iyo waa lagu dilayaa oo aan markaa adiga yaro bakay noloshayda bas alxamdulillah shukr adiga hadda waan I get over it marka hadda waxaan ku noolahay magaalo yar oo tuulo yar aan ku noolahay nin baan guursaday nin baan soo qabnaa oo muddo 5 sano aan wada joogno waa long story and 5 years marriage inaysan deel galeen oo sadib galeen bas anigu waxaan u taageersanahay misana aad u taageersanahay aan u jeclahay inaan maalmaha kamid ah inaan Soomaaliya nabad inoo noqoto kulligeed inta ku wada noolada in nabad u noqoto gaar ahaanna in anaka nabad inoo noqoto anaka marka ay dawladda mas'uulba sida dhaqan galina mise sharci galina inana la aqbali doono anaka marka ayadoo nin guursan karo naagna guursan karo sida anaka marka aan xaquuq u leeyahay بس تاوى دريم قبا يقول يوتيوب مركا إذا يقارك أو فيسبوك عن كودا حرنا don't even think about it in 100 years إن أرنت هذا أدونت بس مقالنا شو دبا وصدق على هذا وسهل كمي مركا إذا مدة هذه لا يو دور سنة وصل هالكمي balse taa iyadoo waa howl gooni marka iyadoo xaway another topic oo aan ka hadli doono mar kale insha Allah balse waxaan hadda adiga aan arintan hadda YouTube ka soo dhigay this is one take I'm not editing and because I don't have time actually I'm on my way to work waxaan intaan adiga hadda aan shaqo aadan waxaan rabaa inaan xoog adiga soo yar duubo on arin marka iyadoo furin aan ninkan aan ka wado daris la Abdul Iraa وأنا إنا وضع دكتور إنا حاجة عن القاعدة عن feedback سي رونا هانتي أرن ياد يحناقص يعني حنق بارك يوتيوب درس العبدوان دعوة sometimes he's funny sometimes he's not but he's kind of arrogant واقف مقعدي كبر لوه ruuxaantana maanta nolosha aan wada joogno dee maalinba waa maalin today's your day and tomorrow's my day it could be and waxa adiga hadda af Soomaali aan ku garan waayo Ingiriis aan kusoo tuuraya maadaama hadda Soomaali aan agagaarka aan aadamneen maadaama Soomaalida ka yara fogaaday hadda adiga nin aan wada joogno oo aan Soomaaliga ku hadlin Soomaalidana aan ka baqaayo maadaama arintaas ay aad iyo aad taabo uga tahay arin aan la aqbali karin marka xoogaa Soomaaliga kuma hadli muddo adiga lisan hadda af Soomaali kuma hadal waana u yar xiisay marmar ayaan ku hadlaayo marka adiga aan telefoon aan reeraha u diro iyo marmar aan la hadlayo saaxiibyaalkay balse sida hadda aan dareemayo in af Soomaaliga yare dhumayo ayaan jeclahay marka 5 sano ka hor ayaan ninka guursaday hooyaday ayaan damayn aan u sheegay hooyaday markaan arinta telefoonkan u diray oo arinta aan ka dhaadhicin waayo hadda si aad ku dhayso hooyo nin baan ahay nin kale aan jeclahay mise nin baa guursanaa aad ku dhayso sheeko ii sheegi jirtay ما أقان هذا ويجيد إن شاء الله ولقيت إنه يجيد أنا قف كانها مركان قرار حديث التهاي ويل با مريكان كهويدس كوعسوم مركو كوعسوم أيوه
hooyo waan guursanaya imaam markay u tagto hooyadii iyadoo faraxsanayda wiilkeeda guursanaya waxay aragtay waxay tagtay wiilkii u tagtay wiilkii markay u tagtay gurigeeda wiilka gurigiisa ay tagtay waxay ku tiri hooyo hadday hadda xaaskaaga iyo aada guursanaysa waxyaalahaas marka hooyadii wuxuu ku yidhi hooyo xaas maahane ninkan ayaan guursanaya hooyadii waa lagu qosla baa wallaahi bilaa hadda waa funny maadaama hadda myth ay tahay oo anigaan hadda aan hubin oo waxaan indhahey ku arkay aysan ahayn xaqiiq uma qaadan karo hooyana hadda ayadan indhaheeda kuma arkan sheeko umay ku maqashay marka hooyada meesha ayay ku dhimatay naxdina u dhimatay hooyadii mar walba igu dhihi jirta waxay igu dhihi jirtaana waan garan waayo kolet way ogeed hadda hooyo waxaa yidhi way ku garanaysaa deep down in her heart she knows you very well marka inay beri ka maalin aan la soo istaago nin baa iqamise nin baan guursanaya taas ayay waxaan u malayn inay ogeed hadda waa iska ooliya hooyadii aad bay u fiican tahay balse marka anaga aan u damca inaan u sheego inaan aan qof khaniis aan ahay waxay telefoonka ugu dhigtay walaalkay wuxuu yiri aan u sheegay walaalkay waan u sheegay arrintan waan u sheegay waxa kama qaran buu hooyo la hadlay hooyo telefoonka iga dambeeyay hooyo la hadlay hooyo marka telefoonka u waxay u tiri walaa wiilkaygiyo maadaama hadda waxa taa adiga hadda maanta walaalkaa ii sheegay ay run tahay waad iga dhimata xagaaga lacagta ay soo diristan waa xaaran lacag dambe ha ii soo dirin waxaan aniga aan maanta aan isku sheeganayn ilaahay unta mala run ahaantii arrinta aad iyo aad ayaan wanahay depression aad iyo aad igu riday marka waan ka yara gaabsada marka adiga hadda lama hadliyo reerka lama hadliyo adiga waxaan ula hadlayna waxay tahay mar walba aan la hadlo aniga nolosha aan ku jiro ma ogsoonaan inaan been u sheega waay beentaan hadda waa idibtaa mar walba hooyada telefoonka u dirayso been u sheegaysa marka waxaan sirinayo kulayta hadee waxba haba la hadlan marka adiga muddo lama hadlin balse aan dib inuu soo noqday Drisle oo mar badan ka hadlay magaceedii blue makeup on aad iyo aad uga hanaaqay haddana daraatimi aan YouTube waxaan ku arkay yar Ethiopia jooga inuu soo qaatay yarka Ethiopia jooga wuxuu lahaa dhar dumar u lahaa oo cad marka ma aqaan inay baadaygiisa tahay celebration inay tahay magaceedu inuu guursanayo bas YouTube waxa ugu jirtay inuu nin guursanayo ay tahay marka Ethiopia uu jooga marka uu soo dhigay magaceedu YouTube-kiisa channel-kiisa soo dhigay oo marka asaga ka hadlay runtii aad baan uga hanaaqay dadka anaga in soo wada dhigto marka nolosheena saa u soo taagan inay mal walba naga hadlaan oo marka jirka Ethiopia jooga maanta noloshiisa hadda maanta ay ka daran tahay teed aniga maadaama jooga wadan laga aqbalayo ninkan isguursadaan dowladda isla guursadaan Ethiopia oo marka ayada uu joogo in nafsidiisa halis gali doonto in marka yarka YouTube soo dhigo Drisle Cabdi aad iyo aad ayaan hadaaqay isoona bandhigtay maanta aniga inaan dan ka lahayn wixii la yiraahdo waalidkayga walaalahayga hadda maadaama aniga weligay aan ka fikri jiray aykan iga fikiraynin magaceeda haddii maanta ka ogaadaan in aniga nin i qabo oo nin aan guursaday sida hooyada igu tiraahdo waa inaga dhimata aan ka dhimanahay xaggooda saaxiib haddaysan iga fikirayn aniga maxaan uga fikirayaa waa su-aasha marka Drisle Cabdi fadlan amaan nasiih waan soo laabtay saaxiib asxaab haddaa tahay fake account mayso please subscribe support me and like my YouTube channel and I have a lot to share. Thank you. I love you so much. Cheers.